wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ee xukuumadda Soomaaliya Mustafa Sheekh Cali Dhuxul oo weheliyeen qaar kamid ah mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta oo kamid ah agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha Cabdirasaaq Cali Yuusuf Bahlaawi iyo sidoo kale qaar kamid ah la taliyaasha wasiirka ayaa waxa ay maanta kulan wada tashi la qaateen wariyaasha ku sugan dalka Kenya waxaana kulankaasi looga tashanayay xeerka saxaafadda Soomaaliya sida ay u arkaan iyo fikradaha ay ku darsanayaan wariyaasha ku sugan dalka Kenya. Kulankan ayaa waxa ugu horeyn furay wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ee xukuumadda Soomaaliya mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxul waxana uu sheegay in kulankan uu codsaday si uu ula kulmo wariyaasha ku sugan dalka Kenya isla markaana uu ogaado cabashooyinkooda ku aadan xeerka saxaafadda iyo sidoo kale baahiyaha kale oo ay qabaan. Kulanka ayaa sidoo kale waxa ka hadlay xeerka saxaafadda iyo marxaladihii kala gedisnaa uu soo maray Xuseen Jaabiri oo ah la taliyaha wasiirka warfaafinta iyo sidoo kale Liibaan Cabdi Warsame oo ah xogayihii guud ee guddiga dib u eegay xeerka saxaafadda Soomaaliya isla markaana wax ka bedelayay. Waxa sidoo kale kulanka ka hadlay injineer Yariiso oo horey u soo noqday wasiirka warfaafinta iyo la taliyihii afayeenkii hore madaxtooyada Soomaaliya haddana la taliyo ah wasiirka warfaafinta iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha Cabdirasaaq Cali Yuusuf Bahlaawi oo isagu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in wasiirka uu go'aansaday inuu la kulmo talooyinkoodan uu dhageysto wariyaasha ku sugan dalka Kenya. media loo la sameeyay wax zero laga soo bilaabo ama overhead magaca keensan wax standard jiri ee jiri groupka oo la iskala qaybshay aniga research aan u qaabilsanaa media loo markaan sameeyay zero ka bilaabo kan intaan ka bilaabno marka waxay dhahaan there's nothing new under the sun wax kasta hore loo sameeyay lix wadan oo aslanaha wadamo qaarkood relevant na leeyihiin oo situation keena ku jiro oo post conflict Soomaaliya Afghanistan kamid tahay Suudaan Ghana wadamo dagaal ka soo maray media loo waan fiirinay maxaa wadaagna maxayna aadkay soo jeednaa wadamo media loo horumarsan jiray Kenya oo kale waa fiirinay more advanced South Africa fiirinay India يعني مركان بالله زيرو كمان بالله وح comparative analysis سمينا بان كسوفين ده محاس وافجني الصومالي ميدي محا ما أقلب كلها أفغانستان هذا ميدي اللي هو سميه هو very strict punishment اللي هي جناح بدل لكن ما يلبى كلشة similarity على هذا كل نحوها ود سيرو كله وحنا كعاوز ينك أنه mandate كان وضعها إن حير كان عن تفتنا aan wixii ara ahaa ee laga soo arooriyay gobolada dalka Soomaaliya shirarka ka dhacay wada tasheedii aan ku darno isla markaana meelaha madmadow iyo mugdi ku jiro aan iftiimino muddo 3 bilood ayaan magaalada Muqdisho fadhinay anaga ku shaqeynay si voluntary waxaan ballan qaadnay anagu inaan il Soomaaliyeed ku eegi doono oo aragtida Soomaalida aan aad u weyn doono anagu aan ka tagin xeerarka caalamiga ah ee saxaafadda iyo waliba xaquulisaanka isku raacsan yahay caalamka haddaan soo koobo waxyaabihii ugu waaweynaa ee noo qabsamay waxaan kulamadii ugu horeysay aan sameynay xeer hoosaad ama xeer kala hagaya guddiga la xiriira dishibliinka iyo waliba qaabka hawlaha loo qaybsanayo sidoo kale waxaan ku guuleysanay inaan sameyno kulamo standard ah oo 3 maalmood toddobaadkii aan ku shirayna magaalada Muqdisho qaybo kala duwan waxaan dawladda ku sameynay xeerka saxaafadda hore ee qabyada ahaa markaas gacanta lagu hayay oo aan ka bedelay waxyaabo fara badan oo af Soomaaliga aan habboonayn in la fahmi karay ee bigos ahaa ama mugdi uu ku jiray waxaan kaloo sidoo kale aan sameynay gudmar aan ku sameynay hay'adda internews qoraal loo soo gudbisay oo ahaa wada tashiyo xeerkaas laga yeeshay oo loo kala qabtay magaalada Muqdisho sidoo kale Garowe loo qabtay Beledweyne loo qabtay Gaalkacyo iyo meel kale oo dalka kamid ah taasoo aaraa looga soo aruuriyay wariyaal Soomaaliyeed iyo dad kale oo arrimaha warbaahinta daneeya oo ay talooyinkooda ku muujinayaan waxa la habboon ee xeerkaas ayada ka haleysnaa iyo waxa u baahnaa in wax lagu daro ama la toosiyo xeerka waxa ku yaala in la sameyn doono guddi heer qaran ah oo ah golaha suxufiyiinta Soomaaliyeed ama guddiga suxufiyiinta Soomaaliyeed golahaas wuxuu u baahan yahay in dhammaan bahda warbaahintu ay ka qayb qaataan sidee ku shaqeynayaan sidee loo heli karaa dadka ugu firfircoon dadka ugu tayada fiican dadka ugu wanaagsan inay maaragtay guddigaas ka mid noqdaan si ay u noqdaan kuwa runtii si cadaalad u maamula warbaahinta dalka sida la socotaana markii hore guddigu waxay soo gudbiyeen 5 wasaaradda 5 guddiga media madaxa bannaan ama media gaarka loo leeyahay iyo 3
civil society golihii wasiiradu waxay ka dhigeen 6 4 iyo 3 weli waxaad u jeedaan in wasaaraddu 6 ay haysto inta ka badan 7 ay civil society iyo media oo ayagana civil society isku ah ay joogaan weliba 3 civil society waa la sii cayimay qof weynoo noqdaa qof haweenka u hadla qofna weynoo noqdaa qof xagga xuquuqul insaanka qofna xagga low society ama ururada shuruucda ujeedadu wax kale ma aha in guddigaas ay noqdaan runtii guddigii maamuli lahaa hagaajin lahaa waxaa kaloo runtii aad iyo aad rabaa in la xasuusiyo wasiirku dadka shakhsi mala xiriir yani inuu qof telefoon u diro oo u yeero oo xafiiskiisa kula hadlo guddiga waa kana runtii wax weyn bay ahayd marka runtii aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsanahay tiimkiina Nairobi jooga inaad hawshaan maaragtay wasiirku idinku yeeray aad dhegaysataan talooyinka soo jeedisaan wixii ra'yi oo meesha ka soo baxan runtii waxay noqon doonaan wax dhaxalgala intaasi kadib ayaa wariyaashii ka soo qayb galay kulanka waxa ay su'aalo weydiiyeen mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ugu horeeyay wasiirka warfaafinta mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow iyagoo sidoo kalena sii raaciyay talooyin iyo ammaan ay u jeedinayeen wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya haddii xeerkan beesha caalamka ka gacan bannaan yahay haddii berri beesha caalamka xeer kale ay idiin keentay yidhahdaan midkaan doonayn wasaaradda warfaafinta way ka yeelaysaa wariyaasha iyaga ma nagala tashtay oo ku faraxsan yihiin mise wax qasab ah ayaa jira waxaan jeclaan lahaa in aan weydiiyo maadaama guddiga dib u eegista ay kasoo gudubtay ay u gudbiyeen wasiiradana ay gudbiyeen inkastoo aan la ansixinin inta badan wariyaasha Soomaaliyeed maadaama iyaga ay qusayso xeerka saxaafadda ma haystaan sida markii ay guddiga dib u saxeen marka ma qorsheynaysaan in aad koobi siisaan wariyaasha si ay u fiiriyaan inta aan la ansixinin mise qorshiin wuxuu yahay in marka la ansixiyo kadib aad koobiga aad wariyaasha usoo gudbisaan waxaa su'aalaha oo aad u fara badnaa markii ay wariyaasha ka soo dhamaadeen kadib uga jawaabay wasiirka warfaafinta iyo hanuunta dadweynaha ee xukuumadda Soomaaliya mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow Xuseen Jaabiri oo ah la taliyaha wasiirka iyo sidoo kale Liibaan Cabdi Warsame oo kamid ah guddigii dib u eegayay xeerka saxaafadda Soomaaliya iyo sidoo kale injineer Yariso oo isaguna kamid ah mas'uuliyiintii jawaabaha ka bixinayay su'aalaha wariyaasha ay weydiiyeen Abdulfataax Maxamed Cilmi oo hoonkeeba ka socda Abdulfataax waa maasantahay anaga beesha caalamka sharciga inoo keenayso runtii aan hadda anaga qaadayna ma jirto sharcigan hadduu wanaagsanaado iyo dooxmaada kaan samaysana insha Allah tacaala aan ku dhaqmi doonaa waana maasantahay laakiin wax noo qorshays ma jiraan beesha caalamka runtii aan sugayno waxaan rabaa inaan siiyo Liibaan iyo Jaabir si ay su-aalkay u jawaabaan oo golaha saxaafadda qaranka iyo meelo kale oo dheeraad ka jiraan inay kulmaraan waa u ogolahay agaasimaha guud oo isaguna kulli halkan joogan meelaha musuqmaasuqa oo ka jireen waa ogolahay jirta inuu ka jawaabo ogolahay isagana waa maasantii dad saxaafadda aqoonta kuma jirin marka sidii loo soo dirnaa gacan lahayd experience education dad aad qualified ku jirmay taasoo sameeyay soo shaqada jaamacada masters degree haysta ku jiray kulankan ayaa waxa ugu dambeyntii soo gabagabeeyay wasiirka warfaafinta iyo hanuunta dadweynaha ee xukuumadda Soomaaliya mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow waxaana uu si aad uga mahad celiyay wariyaasha ka soo qayb galay kulanka su'aalahooda iyo fikradaha kala gedisan ay u soo jeediyeen isagoo sheegay inay tixgelin doonaan talooyinka iyo waliba su'aalaha kala gedisan oo wariyaasha ay u soo jeediyeen wasaaradda warfaafinta waana faraxsanahay discussion galnay waana daliilihiina iyo kumadiskan kulli waa qaado doona waan soo dhaweynaa waxaan diyaar u nahay haddii aad xamar idin joogaan idin joogaanba inaad qof soo degtiin wasaaradda sidaan u shaqeynaad aragtiin kadibna reportka aad idin sheergaysiin si aad waxyaabaha lagu dhaleysiin ay jiraan in kale inay ogaatiin sharcigan saxaafadda anaga gooni ma lihin maanta wasiirka bari qof kale ah wax gooni ka faa'iido laga aragtay ma jirto inaan inta saxaafaddu sameeyno aan ku caburino aad iyo aad mahadsantiin sida noo karaamayseen waa runtii wax badan ka faa'iido maanta shirkana kule waa noo xiriyo mahadsantiin salaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Cilmi Maxamed Waare warbaahinta qaranka Nairobi